kulanti wanaagsan kusoo dhawaada barnaamijkeenan xogaha dunida ee kusoo gudbinno warbixinada Soomaalida iyo xogta caalamka ee degal kasta. barnaamijkeenan waxaad ku dhageysan doontaan xaaladii ugu dambeysay ee dalka Itoobiya iyo magaalada Addis Ababa iyo diblomaasiyiinta reer galbeedka oo isaga baxay kooxda TPLF iyo oramada oo la kulmay waxaysan filaynayn isku day ay doonayeen inay ku qabsadaan caasimadda Addis Ababa duleedkeeda. weerar diyaarada ah oo lagu qaaday ra'iisul wasaaraha dalka Ciraaq oo ka badbaaday iyo koox cusub oo aan horey looga aqoon dunida oo afduubtay askartii ugu badnayd ee Israa'iil shuruudna ku xidhay oo la xidhiidha Falastiin iyo xogo kale ayaan idiin soo gudbin doonaa. aan ku bilownay waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Addis Ababa ee waddanka Itoobiya ka dhoofay qaar ka mid ah ajaanibiga iyo diblomaasiyiinta reer galbeedka ee ka howlgalaya dalka Itoobiya, kuwaas oo lagu amray in ay isaga baxaan dalka. safaaradaha dalalka reer Yurub ee fadhigoodu yahay dalka Itoobiya iyo horey muwaadiniintooda ugu baaqay inay isaga baxaan dalkaas Itoobiya kadib markii ay sii adkaatay xaaladdu oo mucaaradka ay guulo ka gaadheen dagaalka ay kula jiraan dowladda. ciidamada Tigreega ee dagaalka kula jira kuwa dowladda federaalka ee Itoobiya waxay kaabiga ku hayaan magaalada Addis Ababa siday sheegteen diblomaasiyiinta ajnabiga ee ku sugnaa caasimadda Itoobiya ayaa waxay bilaabeen maanta in ay ku qulqulaan garoonka diyaaradaha caalamiga ee Addis Ababa. dhaqdhaqaaqa iyo xiisadda ee ka dhex taagan militariga Itoobiya iyo jabhadaha Tigreega iyo oramada ayaa galay marxalad cusub, waxaana lagu waramayaa in dagaal xoog leh u dhex marayay dhowrkii maalin ee ugu dambeysay, waxaana labada kooxood ay ku guulaysan waayeen in hore ay ugu socdaan Addis Ababa, waxaana loo sabeeyey dhowr arrimood inay adkaysay in hore ay u socdaan jabhadahani, taas oo ka muuqata inaysan u soconayn sidii kooxdani ay ku socdeen toddobaadkii hore ee dardarka ay ku qabsadeen magaalooyin muhiima. warbixinada ayaa sheegaya in sababaha ugu muhiimsan ee hakisay guulihii ay gaadhayeen TPLF iyo jabhadda ee oramada ay tahay maadaama dhulka ka baxsan Dhazi iyo Kobolja ee xiga Addis Ababa laga gaadhayo magaalada Addis Ababa uu yahay dhul bannaan ah oo aan la mid ahayn dhulkii ay ku dagaalamayeen ee gobolka Tigreega oo ah dhul buura ah, waxayna fududaynaysaa in bannaankaasi ay u sahlan tahay duqeymaha ciidamada Itoobiya ay geysanayaan. waana sababaha dib u dhigay dhaqdhaqaaqii xoogga lahaa ee ay wadeen TPLF. sidoo kalena waxaa lagu waramayaa in ilaa hadda uusan jirin is-afgarad buuxa oo ka dhexeeya jabhadda oramada iyo Tigreega. waxaa jira kalsooni la'aan ka dhex jirta dhexdooda, taa oo salka ku haysa qaabka loo qabsanayo caasimadda Addis Ababa iyo sidoo kale in oramadu ay ka cabsi qabaan in ay uga baxaan Tigreegu ballamada ay la galeen. intaa waxaa dheer 10 ka mid ah xisbiyada kala duwan ee siyaasadda ee dalka Itoobiya sida laga soo xigtay wakaaladda wararka dalka Itoobiya ee INA ayaa waxay ka soo horjeesteen ku dhawaaqistii heshiisyada ay gaadheen kooxaha mucaaradka ee jabhadaha Mareykanka oo ay ku ridayeen xukuumadda Itoobiya. xisbiyadani ayaa taageeray dagaalka ay dowladda Itoobiya kula jirto jabhadaha hubaysan, waxaana xisbiyadan siyaasadda ee warmurtiyeedka soo saaray siday baahisay wakaaladda wararka ee rasmiga ee dalka Itoobiya ka mid ah xisbiga gobolka oramada oo sheegay in jabhadda oramada iyo Tigreegu ay yihiin laba urur oo argagixiso ah. si kastaba ilaa hadda Addis Ababa waxay qaatay tallaabooyin muhiim ah oo ay uga hortagayso kooxahani, waxaana Addis Ababa ay geysay furimaha dagaalka ciidankii hore ee ka tirsanaan jiray militariga dalka Itoobiya, kuwaas oo ka khibrad wanaagsan burburka ku dhacay ciidamada la dagaalamayay jabhadda Tigreega muddada sanadka ah, waxaana ciidanka horey howlgabka u noqday ay gacan ka geysteen in la hakiyo xawliga ay ku socdeen TPLF ay doonayeen inay ku qabsadaan Addis Ababa. waxaana kooxaha mucaaradka ee ka soo horjeeda dowladda federaalka ee dalka Itoobiya ay heshiis dhammaystiran ku kala seexdeen dalka Mareykanka. sida ku cad xubnaha saxiixay waxaa ka mid ah xisbiga canfarta oo fadhigiisu yahay bariga gobolka Tigreega, waxayna ku fidsan yihiin canfarta 3 waddan
oo kala ah Itoobiya, Eritrea iyo dalka Djibouti. dhaqdhaqaaqa dimuqraadiga ah ee AGOW ayaa sidoo kale saxeexay dukumiintigani oo ah urur ku salaysan qabiilka AGOW oo degan duleedka gobolka Tigreega ee xuduudda uu la wadaago dalka Eritrea, waana qabiil ay wadaagaan labada dali. Jabhadda saddexaad ee saxeexay heshiiskani jabhadaha ee dalka Mareykanka ayaa ah ururka dhaqdhaqaaqa xoreynta shacabka ee Benshangul oo ah ururka dhaqdhaqaaqa wadaniinta ee Benshangul oo degan gobolka Benshangul ee xadka Suudaan ee Blue Nile, waana qoomiyad ay wadaagaan Suudaan iyo Itoobiya kuna hadasha luuqadda Carabiga oo ah qoomiyad Islaama. dhammaan deegaankoodu wuxuu ka tirsanaan jiray Suudaan ilaa laga saxeexay heshiiskii xuduudda ee Suudaan iyo Itoobiya 1902 kaas oo gobolka Benshangul siiyey dalka Itoobiya, waxaana uu dalbanayay in gobolku uu ka go'o Itoobiya. 1986 waxaa dib loo dhigay dhaqdhaqaaqani iyadoo ay sii xoogaysteen iska caabinta shucuubta Itoobiya ay kaga soo horjeedaan taliska Mengiste. dhanka kale waxaa saxeexay heshiiskani qoomiyadda laga tirada badan yahay ee Comanti oo ah qoomiyad ku nool gobolka Amxaarada ee waqooyiga magaalada Gondheer oo ah magaalada labaad ee ugu weyn gobolka iyo tuulooyinka ku dhow xadka Suudaan. waa koox aan ka badnayn 1 milyan oo qof, waxayna ku nool yihiin gaadoon guud ahaanba. waxayna ku eedeeyeen Amxaarada in iyaga ay fogeeyeen. Amxaarada waxay ku andacoonayaan inay yihiin dad ka soo haajiray meel ka baxsan dhulka Itoobiya, sida ku cad qaar ka mid ah qoraallada taariikhiga ah oo tilmaamaya in asalka qowmiyaddani ay dib ugu noqdaan faraaciin kala duwan qarniyo ka hor oo ay u soo haajireen Itoobiya. diinta Yuhuudda waxay ahayd diinta ugu weyn ee qowmiyaddani, laakiin u wareegitaanka diinta Masiixiga ayaa ka dhex dhacay qaar ka mid ah jiilalka cusub. dhanka kale jabhadda wadaniinta xoreynta ee Sidaama ayaa saxeexay heshiiskani, waxayna ku nool yihiin gobolka Sidaama ee koonfurta dalka oo ay ku nool yihiin 17 milyan oo qof oo ay ku jiraan 4 milyan oo ah qoomiyadda Sidaama, kuwaas oo sanadkani u dabaaldegaya guusha aftida ay u qaadeen in ay helaan gobol u gaar ah. gobolka ay ku nool yihiin waxaa Itoobiya looga yaqaanaa dadka koonfurta. Sidaama waxay ku hadlaan af iyaga u gaar ah. sidoo kale heshiiskani waxaa saxeexay gobollada muddo qarniyo ah dagaalka kula jiray Itoobiya ee gobolka Soomaalida oo ay ka jirtay aragtida ee Soomaali weyn, waxaana gobolladaasi ay goobjoog ka ahaayeen dagaalo qadhaadh oo dhex maray Itoobiya iyo dhaqdhaqaaqa ONLF. gobolka dhaqdhaqaaqa ayaa laga soo horjeeday xukuumadda Addis Ababa sanadihii ay xukumayeen Tigreega. dhanka kale jabhadda toddobaad ee saxeexay heshiiskani ayaa ah jabhadda Gambeelaha oo ka tirsan magaalada Gambeelaha ee xuduudda ay wadaagaan Suudaan iyo Itoobiya. dadka deegaanka waxay ka tirsan yihiin kooxo isku dhaaf ah oo labada wadan ka soo kala jeeda. dhanka kale ciidamada oramada ee garabka military ee jabhadda xoreynta oramada oo lagu tiriyo in ay ka mid yihiin jabhadaha ugu waaweyn ayay heshiiskani saxeexay, waxayna wataan 10,000 oo dagaalyahan ah. baarlamaanka federaalka Itoobiya ayaa horaantii sanadkani ku dhawaaqay inay yihiin urur argagixiso ah. garabka siyaasadda ee ciidanka xoreynta oramada ayaa waxaa hogaaminaya xisbiga uu ku jiro Jawaari Maxamed oo dalka Itoobiya ku laabtay kadib markii uu Abiy uu xukunka qabtay isagoo ka jawaabayay baaqi dib u heshiisiinta, balse sanad kadib markii uu yimi Abiy ayaa xabsiga la dhigay. qoomiyadda oramada ayaa ah qoomiyadda ugu tirada badan ee dalka Itoobiya, waxay ka dhigan yihiin 40% shacabka dalkaasi, waxaana deegaankooda ka bilowday dadbaxyo waaweyn sanadkii 2015 xilligaas oo xukunka u hayay ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Itoobiya Haile Mariam Desalegn. waxaana ugu dambeyntii jabhadda saxeexay heshiiskani uu yahay xisbiga jabhadda Tigreega. warbixinada kalena urur aysan horay dunidu u maqal oo lagu magacaabo dhaqdhaqaaqa xorriyadda ayaa sheegatay inay afduubeen 2 askari oo Israa'iila
barnaamij baaritaanka oo jimcihii laga sii daayey telefishinka aljaziira ayaa kooxdani oo u waraystay waxay u sheegeen inay afduubeen 2 sarkaal xilli howlgal amni oo qarsoodi ay ka fuliyeen meel ka baxsan Israa'iil. barnaamijkani ayaa baahiyey muuqaalada 2 nin oo afduuban kooxdani oo sheegay inay yihiin 2 askari oo Israa'iila. mid ka mid ah 2 sarkaal ee Israa'iil ayaa magaciisa waxaa lagu sheegay David bin Rozed, waxaana uu magaca saaxiibkii ee kale uu ku sheegay David Berry, iyagoo intaa ku daray inay yihiin ciidan Israa'iila. ururkani ay sidoo kale bishii Sebtembar ee sanadkii tagay waxay sheegeen inay afduubeen 2 askari oo kale oo Israa'iila, xilligaas oo Israa'iil aysan bixin jawaab rasmi ah. sida ay ku warameen afduubayaasha, 2 askari ayaa lagu qabtay howlgallo kala duwan. muuqaal laga baahiyey mid ka mid ah askartan Israa'iil ee afduubeen dhaqaaqan cusub wuxuu codsaday caawimaad degdeg ah sababtoo ah saaxiibkay Berry wuxuu ku sugan yahay xaalad caafimaad oo liidata, wuxuuna xaaladooda guud u ku qeexay inay tahay mid aad khatar u ah. ayaha 2 askari wuxuu ku xidhan yahay sii deynta maxaabiista Falastiin ee ay haysato Israa'iil dhammaantood. ururkani oo isku magacaabay dhaqaaqa xorriyadda ayaa ah kii ugu horreeyey ee laga maqlo dhulka Falastiin. barnaamijka baaritaanka ma shaacin wakhtiga iyo goobta la afduubay 2 askari iyo halka lagu haysto intaba. xogeena waa naga intaan xogaha kale idiin soo gudbin doono. nabadgelyo.